rajadu waa inaga dalkaaga ha ka rajo dhigin. rajadu waa inaga dalkaaga ha ka rajo dhigin. rumaynta hankeenna iyo siduu qalbigeennu rabo run bay noqon maalin dhowe rajada dalka yaan la dhigin. rajadu waa inaga dalkeena ha ka rajo dhigin. dalkeena waa mustaqbalkeena sidii aan mustaqbalkeena u wanaajin lahayn aan u midowno. rajadu waa inaga dalkaagana ha ka rajo dhigin. rajadu waa inaga dalkaaga ha ka rajo dhigin. rajadu waa inaga dalkeena ha ka rajo dhiginina. ogaada inaanaa mustaqbalka maanta iyo kan beriba. rajadu waa anaga ha ka niyad jabina dalkiina. ani magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdikhaaliq maxamed xasan waxaa laygu naanaysaa hurre buuba waxaan ka mid ahay dhalinyarta haldoorka ee Soomaaliyeed. intaas kadib ujeedkan caawa halka isugu imaanay ama xafladeenu daaran tahay waxa weeye buugaygan aan ugu magacdaray rajadu waa inaga. buugaygan waxaa ku qoran 5 cutub aan rabo bulshadeeda iyo dhalinyarta Soomaaliyeed in wax iskaga bedelaan oo muhiim inoo wada ah. cutubka koowaad waxaa la yiraahdaa dhalinyaro maxaa inoo dan ah maxaase inoo daran oo cutub ka sheekeynaya dhalinyarta Soomaaliyeed inay ogaadaan dalkan doorkay ku leeyihiin inay dalkooda aaminaan inaysan dalkooda ka rajo dhigin inay dalkooda yahay mustaqbalkoodii sidii mustaqbalkooda wanaajin lahaayeen ay u istaagaan. waxay ogtihiin xorriyadda inagu maanta haysano cidda noo keentay inay yihiin SOL kadibna Soomaaliya way ka dhalmadaysay hanada dalkan u soo baxo samata bixiya hadday jiraan nama soo bixin fagaaraha muuqdo oo anigu ma arkin idinkuna ma arkin. cutubka labaad waxaa la yiraahdaa qabyaalad iyo qabiil jeclaysi. isaguna wuxuu ka waramayaa waxay ogtihiin dalkayga aafada cudur uu ka hana qaadi lahayn inuu yahay qabiilka sidii aan qabiilka isaga deyn lahayn. cutubka saddexaad waxaa la yiraahdaa deeqda ilaah dalkeena siiyey. isaguna wuxuu ka waramayaa nimcooyinka haysano waxay ogtihiin in xamar rawaashiid inta la dhaho inagoo nimcooyin badan aan ku soo koobi karna haysana. cutubka afraad waxaa la yiraahdaa aqoon baa dadka anfacda waana cutub muhiim oo muhiim buugayga oo buuga inta badan uu ka hadlayo waayo dalkii uma baahna in qori lagu maamulo wuxuu u baahan yahay maskax ka saliima jahliga iyo aqoon darrada. waxaa la yiraahdaa de laba qof oo hooyo iyo aabowda dhaleen baan midna naftiisa wax laga weydiin midna dunida wax laga weydiiyaa waxay isku dhaafeen waa aqoon iyo cilmi. waa ku faraxsanahay inaan qayb ka ahay bandhiga walaalkay Hurre iyo buuggiisa rajadu waa inaga dalkaaga ha ka rajo dhigin. waxaana rajeynayaa inaan aniga iyo inta akhrisataba oo anfici doono. aadna waa idin salaamay.